afhayeenkii kooxda al-shabaab caldheere oo la soo wariyey in lagu dilay gantaal warkaasi oo xaqiiqadu u dhawaya waxaa lagu faafiyey baraha bulshada sidoo kale saraakiisha sirdoonka ayaa rumaysan in xalay saqdi dhexe gantaal lala beegsaday gaari uu saaraa uu ku dhintay dhinaca kalena kooxaha argixisada al-shabaab shakhsiyaadka taageersan ayaa ku soo badanaya baraha bulshada social mediaha ayaga oo ku taageeraya argixisada iyo falkooda khawaarijta anigoo gudba farxaan qaroole taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir ayaa howlgalkii iyo weerarkii lagu qaada basro kadib markii la guulaystay geeriyooday waxay wararku sheegayaan inuu ku istaagay miino oo ay la qaraxday kadibna ay dhinteen isaga iyo ilaaladiisii oo dhan irqayayna ku tufsan diinta faashil yeeleen jihad been afafeen dadka faasa kuleyneen bismillaahi raxmaani raxiim qubnaha waaga cusub TV waxaa ugu waaweyn taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole oo geeriyooday kadib markii qarax lala beegsaday yaa dilay yaa ka dambeeyay dilkiisa ma al-shabaabba ma siyaasadba farxaan qaroole waa kuwa maxaa ka taqaan taariikhdiisa qaybta dambe wararka ayaad ku maqli doontaan hase yeeshee agaasimihii nabadsuguddii sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad ayaa waxa uu galay ayda shabaab iyo isaga ayaa isku ugaarsanaya duleedka degmada Balcad dhirta dhexdeeda iyo geedaha iyo hawdka ayuu ka ugaarsanaya oo ka kalluumaysanaya haddii aad taqaaneen agaasimo sirdoon oo xafiis mukayf la amarna ka soo bixiya waxaa soo baxay agaasimo sirdoon oo jabhadaynaya oo u diyaara dagaalka inuu ku dhinto taliyaashii ciidamada wasiirkii gaashaandhigga intaba jiidaha hore dagaalkay joogaan midna maanta muqdisho kuma sugna madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu heshiis ka kooban 10 qodob la saxeexday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii uu maqlay geerida farxaan qaroole wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee soo fadhiistay warbaahinta ula tacsiyey hase yeeshee kadib wuxuu u boqolay dalka Turkay waxaa la sheegayaa in xanuun dhinaca madaxa ah ama ka dhashay timo beeris loo sameeyey oo neerfihiisa wax gaarsiiyey uu ugu baxay Turkiga lama yaqaano waxa laga yeelayo hase yeeshee wuxuu ahaa farmaajo nin bidaar leh oo markii dambana timo yeeshay oo timo ku beertay dalka Turkiga ma timihii buu dib u soo hagaajinayaa ma neerfaha laga daweynayaa xaaladiisa cid war ka haysaa warar kale ee xiisaha leh ee ugu waaweyn qobaraha waxaa ka mid ah afhayeenkii kooxda al-shabaab caldheere oo la soo wariyey in lagu dilay gantaal warkaasi oo xaqiiqadu u dhawaya waxaa lagu faafiyey baraha bulshada sidoo kale saraakiisha sirdoonka ayaa rumaysan in xalay saqdi dhexe gantaal lala beegsaday gaari uu saaraa uu ku dhintay hase yeeshee weli xaqiijin rasmi ah ma jirto oo ku saabsan geerida Sheekh Caldheere ninka loo yaqaano oo ah afhayeenka khawaarijta kooxda argagixisada ah ee al-shabaab dhinaca kalena kooxaha argagixisada al-shabaab shakhsiyaadka taageersan ayaa ku soo badanaya baraha bulshada social mediaha ayaga oo ku taageeraya argagixisada iyo falkooda khawaarijta waxaa iminka mataqaan loo baahan yahay in loo istaago sidii looga hortagi lahaa dadkaasi dacayadaha ku faafinaya social mediaha ee taageersan kooxaha argagixisada ee khawaarijta la magac baxay al-shabaab ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Xamsana markii ugu horeysay wuxuu fagaara ka sheegay in ganacsada Mareeb Muqdisho ama gobolka Banaadir haddii looga yeero jirib ay tagayaan oo haddii ay argagixisada u yeerto hase yeeshee aysan tagaynin haddii dawladda ay u yeerto isu imaanayn waxaa la rumaysan yahay in wejiga labaad ee dagaalka ugu weyn ee dawladda ay qaadayso iyo shacabku uu yahay in ganacsada cadaadis lagu saaro inay joojiyaan lacagaha baadda ah ee ay siiyaan kooxaha khawaarijta ah
ee halaaga ummadda Soomaaliyeed ee qaraxyada ku laayay kooxihii awoodda sheegan jiray ee argixisada al-shabaab ayaa waxay u muuqdaan ayagu kuwa awooddooda la wiiqay kadib markii ay kaceen shacabka iyadoo maanta gobolka Banaadir ay kaga dhawaaqeen shirweyne ay ku yeesheen beesha Mudulood inay qaadayaan dagaal aan loo kala harin oo ama guul ama geeri magaciisu yahay dagaalkaasi ayaa waxa lagu wajahayaa kooxaha argagixisada ee jooga gobolka Shabeellaha Dhexe xaaladdu cirka ayay isku shareertay deegaan walba waa lagu baacsanayaa argixisada hiiraan ayaa waxaa shalay ku dhintay nabadoonkii beesha Xawaadle nabadoon cilmi hagar oo isaga horey ugu dhaartay inuu ku dhimanayo dagaal ama uu ka guuleysanayo argixisada hadalkii uu ku dhawaaqay guul buu noqday isagana shahiid ayuu noqday rasuulka sallallahu alayhi wasallamna waxa uu yiri kooxaha qawaarijta qofkii ay dilaan iyo qofkii dilaba labadu waa ahla janno sidaa darteed janno ayaan u rajaynaynaa geersigii kaliyaha adkaa ee nabadoon cilmi hagar ciidanka dawladdana waxa ay isku dhareeriyeen ama isku fidiyeen mataqaanaa dhinaca webiga mataqaanaa gobolka Shabeellada Hoose iyagoo guud ahaanba la wareegay deegaankii Basro iyo deegaanadii ku teersanaa ee kooxaha argixisadahi ay ku lahaayeen taliska ugu weyn gobolka Shabeellada Hoose dhinaca kalena degmada Afgooye ayay beesha gar uga dhawaaqday ciidamo macawsleeya oo ugaarsan doona oo dagaal la gelaya kooxaha qawaarijta al-shabaab sida muuqatahay al-shabaab dhinac walba waa la garaacaya cirka waa la garaacaya dhulka waa la garaacaya beelihii Soomaaliyeed ayaa hubka qaatay aamusnaan dheer kadib waxa muuqatahay shabaab inay 5 bilood sii jiri doonin haddii dhaqaalaha laga cuna qabateeyo haddii sida xabadda loogu wado oo reer walba ay weeraraan shabaab yuu u talinayaa wey xaguu ka talinayaa wey xaguu joogayaa wey arrimahaasi oo dhan ee xasaasiga ah anigoo gudba Farxaan Qaroole taliyii qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa howlgalkii iyo weerarkii lagu qaaday Basro kadib markii la guuleystay geeriyooday waxay warku sheegayaan inuu ku istaagay miino oo ay la qaraxday kadibna ay dhinteen isaga iyo ilaaladiisii oo dhan tirqayayna ku dufsan inta fashil hayeli jihabena